السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وانا نعيمة عبد النور وحاكم الله ودنك مريكنكا سان كلاود ميل يراهدو oo wadanka gobolka Minnesota. waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo Fountain of Life goojadeena dabiiciga iyo waxa ay tarto. waxaan isticmaalayaa hadda 2 sano iyo bar ku dhawaad ayaan isticmaalayaa 2 sano isticmaalayaa qiyaastii. waxyaalaha ka faa'iiday waxa kamid ah inay iga caawisay gaaskii, inay iga caawisay migraine-kii. sidoo kale waxaan haystaa wiil yar oo teenager ah caloosha dadka waxa waaye constipation mar walba ba arkin oo leh markuu joogto uma isticmaalo mar walba iska ilooba waxa arkaysaa habeenkii asagoo raadinayo markii calooshii ay taagan tahay oo arko aad iyo aad bay u caawisaa. sidoo kale wuxuu leeyahay sanboor ayuu leeyahay ama allergy oo minor ah macnaheedu oo aan aad u darnayn bisadoo kale allergy ayuu ku yahay markuu iska dareemo ayada mar walba aan boorso ugu wadaa. hadda caawa kale waxaa joognay magaalada gabar walaashay gurigeeda bisada u joogta marka bisada ma daynayo xabadiisa waxa waa ka daawadaa marka halkaan kala sanka markuu marsado caburkii iyo wixii oo sanboorka uu dareemayay ama allergy aad uga nafisaa maasha Allah tabarakallah. sidoo kale waxaa jira wax aniga aad iyo aad khaas igu ah oo jeclahay taasoo ah in miisaanka iga caawisay. macnaheedu ma ahan in caawa inta qaadato isla birta miisaanka uu ka dhacayo laakiin haddii aad diet-kaada wanaajisid